qodobadii shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha warbixino ka bixiyay arrimaha siyaasadda iyo amniga. wuxuu madaxweynuhu ka warbixiyay howlgalladii socday iyo qaababkii ay u dhacayeen meelahay marayeen inay meel fiican maraysa 80% inay sidii loogu talagalay u socdaan. meel fiican ay marayso goordhowna ay howlgalladu si toos u bilaaban doonaan. warbixin dheer ayuu ka bixiyay. waxaa madaxweynaha warbixintiisa ku xigay madaxweyne ku-xigeenka labaad oo isna ka warbixiyay guddigii dakhliga madaxweyne ku-xigeenku chairmanka u ahaa. warbixinta uu ka bixiyay waxaa maanta la go'aamiyey shatiyadii ganacsiga oo kala duwan, kuwa exportiga iyo importiga, shatiyadii ganacsiga ee caadiga ahaa ee magaalada nooc walba ay lahaayeen. waxaa kaloo iyadana ayaa la ansixiyey qaybihii canshuuraha guryaha ee sanadlaha ahaa. kolley shirka lagu soo bandhigaya ayaad ka arki doontaan. warbixin dheer ayuu ka bixiyey, arrintaasna lagu guuleystay. wasaarado badan ayaana iska kaashaday arrintaasi, waxaana arrintaasi daadihinayay madaxweyne ku-xigeenka. intaa kadib waxaa halkan noogu jira qodobadii laga hadlayay wasaaradda gaadiidka oo dib loo dhigay iyo beeraha oo iyagana dib loo dhigay. waxaa iyagana warbixin halkan ka jeediyey wasaaradda macdanta iyo biyaha oo soo bandhigay xeerarkii wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo biyaha, xeerkii biyaha, kii tamarta, iyo maxaa la yiraahdaa hawlihii shatiyadoodii sidii wax lagu qaadi lahaa. taasna weli lama ansixinin. khamiista dambe ayay u dhacday, dib ayaa loo waxayn doonaa. shirkana intaa ayuu ku dhannaa. waadna salaamantihiin. dabcan Amazon qayb bay ka tahay waxyaabaha mar walbana dib u sii ridaya. waxaa ka mid ahaa dhowr jeer waa run waa lagu dhawaaqay Jubbaland Corridor, laakiin sababo qaybaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya ayuu dib ugu dhacay. dhinaca Jubbaland ma ahayn. haddana waa la isla gartay inay hawshaasi dhacdo, waana diyaar wey hawsha, waxba hadda kama harin.